بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها قالي قيمها إيو قدرين تبضن ملك صدا فيها دنيا أدك جوكتين واختيادة كلا ددون إيقاد كلا سوغنتين برتاني وبرتي آلا بان سكوي مجرنا على دقن هدد نقعو سبتين سود وهذا هدي أدنا لجوكتين وانيوم هذا علنا لجوكينا إيو ليري قرنتين نبا intaas marka laga yimaado waxaan rabaa haduu Ilaahay raado inaan dhowr arrimood aan isdul taago marka hore waxaan rabaa inaan dib inii celiyo oo aan inigu celiyo 24 bishii 7 2021 maalin madow maalin xasuus leh maalin maskaxdeena ku reebtay raad maalin aan la iloobi doonin qalbiyadayadana ku sii dhaxnoolaan doonta maalintii dadkeena la xasuuqay maalintii maatidii lagu gowracay gurigooga iyagu marka hore waxaan leeyahay dhammaan dadkii halkaas lagu xasuuq Allah u naxariisto qabriyadana Allah u nooro intii dhaawacana Ilaahay ha u booyadhayo dad badan ayaa maanta dibadu jiifa dad badan ayaa maanta tiif ku taala dad badan ayaa maanta dhaawacyadii halka ka soo gaaray haday tahay tumaskaxeed iyo haday tahay tujireed aan ka soo kaban wali waxaan isla ogsoonahay oo isla garanaynaa dadkeena cadawga xasuuq inuu cadawga kale la socday si kale hadaan u dhigo dadkeena dadka xasuuq Toobiya oo dhan inay u dhanayd way marxaati u ahaayeen waxa marxaati marag madoon ah gaariyadii ciidanka qaranka in lagu soo daagulay ama lagu soo goray cid ay ka qarsan tahay ama ay ka daboolantahay ama ka daahsan tahayna ma jirin hadana ma jirto kuwii amarka bixiyay iyo kuwii mishanka fulinayayba intuba maanta iyo shalayba way ka warqabeen haday tahay kuwa Soomaali ah oo ciidanka ku jiray ama ciidanka maamulayay iyo haday tahay kuwa dibadda ka joogay qofka aad saysiin dib laakiin waxa ka koodhoonta ee walaal aad moodaysid adigana dhabarka ka tooganay sidee doontaba ha ahaato kulay wax badan baa laga bartay walaalihii halkaas lagu xasuuqay Allah u naxariisto qabriyadana Allah u waasiyo xasuuqyadu inta kuma yani garbaciisa waxaan u soo qaadanayo halka ugu daran ee uu xasuuqo uu ka dhacay ee maantida aan loo kala eegin ay ahayd Itoobiya oo dhanna ay ka qayb qaadatay si magaaladaas loo xasuuqi lahaa oo meesha looga saari lahaa sababtaas ayaan iyada aan u soo qaatay oo aan ugu horeysay laakiin waxa ka horeysay adeyti ayaa ka horeysay oo ahayd 6 bishii 6 sidoo kale waxa ugu dambeysay cundufo oo bishii 8 12keegii 2022 iyada iyo dan la helay iyo dhammaan dhul badan oo aan la soo koobayn inta mishinka markii la fuliyayna cidii fulinaysay waad wada garanaysiin isla waqtigiiba la yiri dareyskiiba laga dhigay ama waa la bedelay waad garanaysiin ninkaas uma baahno inaan magaciisa sheego laakiin waad ogeydeen ninkii ciidanka lagu ka xiray dadkeenana baabi'i barakiciyay ayuu ahaa intaas ayaan ku dhaafi kulay qalbiyadayada iyo quluubtayada ayay ku jirtaa marnaaba iloobi mayno dadkeegii la xasuuqay ilaa qiyaamaha waan ku eedaamayna marnaaba lagama yaabo inay qalbiyadayada ay ka baxdo oo aan hilmaamno intaas baan taa ku dhaafi waxaan kala rabaa haduu Ilaahay yiraahdo in aan daba dhigo Itoobiya waxay ku dhawaaqday in ay sameyn doonto dhul beereed ballaaran oo ka badan sanadii hore dhul beereedkii la sameeyay inta dhul beereedkaas aanu iimanin waxaan dadkan u sheegayaa horta galbeedka gobolka City dega iyo guud ahaan umada deegaanka degta maxaa yeelay dhulka kale waa dihin yahay oo lama baahno dhulka kale Soomaalida kale inaan maxaa la yiraahdaa aan u dhawaaq balse hadda inta afka ku jirta afka libaax maxaa la af libaax buu galay inta af libaax gashay waa intan hadda deegaanka weeyaan saadarteed waxaan rabaa inaan u sheego dhulkiina beerta imka deegaanka dhowr meelood bay wax ka baxaan oo wax laga beeraa dhowrka meelood ee wax laga beero oo gobolka Faafan degmada Harawa iyo degmada Tuuliguuleed waxa soo raacday gobolka City oo meel yar oo kooban beerihii Aasiyaanka ahaa ee Huursa ciidanka Itoobiya ayaa iska qaatay gacantana ku haysta kana faa'iideysta beerihii oo hadda iyagu beerta dadkii lahaana kama hadli karaan mana sheegan karaan oo mana soo dhawaan karaan xoog ayaa laga qaatay beerihii Huursaad oo dhan ay umada Soomaaliyeed lahayd waa la qaatay kuwa erarba oo qaar waliba la qaatay iyo qariiqir waxa kale la bilaabay gabiba la bilaabay oo laga beeraa waxyaabo qaar inkastoo dadkeenu ayna wali haadaas ayna u bislayn inay wax beertaan oo ay dhulka wax kala soo baxaan khayraadka iyo wanaaga Ilaahay uu siiyay ay hoos ugu foorsadaan inkastoo ayna wali u bislayn haba se ahaato hadana waxaad moodaa inuu dhaqdhaqaaq yar uu ka jiro gabi iyo xaaray inuu dhaqdhaqaaq ka jiro laakiin macal asaf hal shay ayaa la wada beerayaa kan haduu basal beero kii kale basal buu ka garab laakiin waxa uga fiicnaan
ahaan lahayd kan hadduu basal beero kan uu badhaadho beero kan hadduu badhaadho beero kan uu timaad beero kan hadduu timaad beero kan uu qaji beero kan hadduu qaji beero kan uu qamadi beero kan hadduu qamad beero kan uu beero hadhuudhu beero kan uu xasiid uu beero waxyaabahan la beerayo in la kala duwo laakiin hadduu kani basal kana basal kana basal kana basal kana basal sida hadda ka jirta degmada gabi iyo xariiba inta ugu badan boqolkiiba 9 dadku basal bay wala beeraan basashii suuqa markay u soo dhaadhacdo waxay noqonaysaa antiina ay noqonaysaa markaas way wada khasaarayaan dhamaan basashii ka imanaysa Itoobiyada sare oo dhan hadda gabi baa loo soo doon laakiin haday timaadkii iyo baraadhihii iyo waxyaabaha kale oo dhan haday sameyn lahaayeen iyaga loo soo doonan lahaa halka baa loogu iman lahaa laakiin macal asaf ma sameynayaan laakiin way isku wada dayanayaan ali haduu basal beeray Usmaanna basal buu beeraya marka waxaan kula talin lahaa in waxyaabahan la beerayo la kala duwo ama la kala weeciyo ninba waxa uu awoodo ama ka kale ka duwan waa in la sameeyo la beero ta kale wixii aad ku soo tabacdeen ee aad ku soo daasheen hadana meel kale in la qaado oo qolo kale ka sii macaashto waa laga fiican yahay waxaan kula talin lahaa ininku ka faa'iideysta noqda ka xamaalaya ka iibinaya iyo ka kale ku sii iibinaya hadaad julmad aad ku iibisad ka kale ee tafaraaruq ku sii iibinaya iyo ka kale ee kala miisaamay ee meesha lagu miisaamay laga iibsanayaba ama xaafadaha looga soo doonanayo kaasna inaad noqotiin baa inagula talinaya laakiin isku xumayntan aad isku xumaynaysiin ee la leeyahay hebel basal buu ka faa'iiday adiguna basal ka faa'iid yani waxyaabaha dadkeena aan ku arkay iga yaabay taas iyo kuwa kale badan baa kamid mesela mid baa ayaa bilaabay kontraband buu bilaabay kontraband muxuu soo gelinayaa wuxuu soo gelinayaa alaab ayuu soo electronic buu soo gelinayaa wuxuu leeyahay ninkii hebel kontraband buu bilaabay ka kalena kontraband buu bilaabay muxuu soo gelinayaa wixii ka kale uu keenay uu bukeenayo iyagii baa suuqa isku dilaya oo suuqi isku baabiinay shalay dhulku wuxuu ahaa qof Soomaaliya baa tagi jiray wajaale ama geeyga Soomaalida ka soo iibsanayay wax yar dul dhiganay isaga ayaa u keenayay kuwa fadhiya darrabe haday uraagta tahay iyo kuwa kale haday tahay laakiin hadda maanta ninkii uraaga ahaa ayaa intuu ka socdo darrabe ayaa tagay wajaale sidii maamada Soomaali ay maxaa la yiraahdaa alaabta halka uga soo qaadaysa uga soo qaadanaya wuxuu soo qaadanayaa isaga oo 1 santiin ay ka bixin oo kale maxaa meeshka suuqi ka baxaya waxa suuqi ka baxaya maamooyinkii alaabta kala rogayay ee iyagan iyo kuwan u dhaxeeyay ayaa maxaa la yiraahdaa meeshii ka baxay iyagii baana iska saaraya suuq ilaa dadkan iyaga soo tusay wajaale iyaga soo tusay halkaas wixii laga soo siiyo kelmadaha meesha aan ka soo arkay waxyaabaha aan ka soo arkay xaqiiqada ah waxa kamida waxyaabaha ay uraagtu ay yiraahdeen aqal ama meel bakhaar adigu kireyso Soomaalida ayaa ku buuxinayso oo ku camiraysa aqal buu kireysanayaa ama bakhaar buu kireysanayaa alaabtii Soomaalida ee kontrabaaga lagu soo galiyay ee la soo rafaadeen ee inta lacag ay kaga soo baxday ayaa aqalkiisii lagu soo xareynaya halkaaba loogu xareynaya maalin bashilin buu u tuuraya maalin 20 faran 30 faran 100 200 ay waxaba u daadinaya sababtoo ah faa'iidadii oo dhan isaga qaadanaya iyadoo wixii ay la soo rafaaday ayay hadda ay gaaraysaa inay 2 sano 3 sano bil 4 bilood 3 ay gaarsiiyo ilaa inta uu ka faa'iiday dhowr jeer markuu sidaas sameeyo ninkii isaga ayaa hadda bakhaar yeelanaya waxay istiraadeen adigu meel istiraatiiji oo dukaan bakhaar ka kireyso Soomaalida ayaa lacag iyo ku buuxinayto dukaankaas waa xaqiiqo jirta weeyaan qof kasta oo darraba joogana waa ka warqaba waxaanan arkin ama waxaan xaqiiqo ahayn ma rabi inaan umada la wadaago marka waxaan nigula talini war waxaan ininku aad isbaabiinaysiin suuqa aad iska saaraysiin ininku aad isdhibaataynaysiin iska daaya dadka la jaan qaada maamadu labadii shay ay soo qaadaysay hadii cunaha loo joogsado oo iyagu cunaha isku joogsan ma dhibayn xaqiiqatan waxa aad iyo aad looga xumaado wixii halkaas adigu aad ka soo siisanaysid isaga doonanaya taaba iska daaya telefoon buu ku doonanaya telefoon ayuu ku doonanaya telefoon ayuu u dirsanaya gaariyada soo baxaya ayaan loogu soo dhiibaya inta ugu badan waxa suuqa umada ka dilana waa dadkan gaariyada soo raranaya kuwan gaariyada raraya iyo kuwan soo raranaya ninkii gaarigi wuxuu doonayaa wax alaabta laga gaarigiisa soo ugu baxo oo ma eegaya mustaqbal iyo maxaa la yiraahdaa iyo dadkan danyarta iyo maamooyinka rafaaday ee habeenkiina si jamaada dharaartina soo jamaada iyaga oo qaadira inta oo dhan ma fiirinayo balse wuxuu fiirinay waxa kale hata isaga jeebkiisa ku soo dhacaysa dhibaatadaas iyo kuwa kale oo badan ayaa ka jirta xaqiiqad laakiin aniga waxa iga tala ah dhalinyarta hadda socota ma rabi inaan hebel iyo hebelaayo waxa idhaahdo laakiin waxaan kula talin dadkiina u naxariista umadiinan ka warhaya inta baan rabay inaan in la wadaago waxaan kaloon u sheegay dhulka ballaaran ama dhul beereedka ay Itoobiya sheegaysa ee la beeri
doono waxaad ogaatiin inuu dhulkiina yahay dhul kale oo ballaan oo maran oo aan beer ahayn oo Ethiopia u dhiman ama u hadhima jirto dhulka la rabo in la beero waa dhulka aan soo aragnay ee banaan min kaga qaadawan le ilaa iyo أسبل إلا أفعسه أنت أود حيث أردن وبنايه لكن مع الأسف بورها كسرية أما بورها كحيرنا هو ضبيره تدك هالكائن بكسوط عوضان مركان دوك أمريكا كل واحد يسأل هذا أنا قماشن إثيوبيا دت كان بابا قوميستبع إثيوبيا دت كان قبل كسيتي دجن أيا إثيوبيا ده بقوميست دوك أنت على إيجا بلارن أيا ده جوجان كما فائدة السنيان إدنا أقولنا يعني إنه كسور على عضو قبل كسيتي مركان ترى حقها إمك أوجب حديد حقها قلبيت كمركان أوجب حديد وبيره وبورو واحد كان أرمض أردن كحيل بورها جلود دورن وبيرو بنان كينا لبا يرو دلنيار يا دور ساعات أما دور جيل أما دور أري أي داق إد كلا أو ودوانك مركا إن شاء الله وحنا رجينا إن فرينتي نسوق قاعد دون توي تسويم الدون كل ما يدحني جت الناس لا ينبت كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته